السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walbo dhalinyaro ah caqabada haysto caqabadaas waxaa waaye sidee shaqo ku heshaa sidee ganacsi ku samaystaa yani qof walbo dhalinyarana marxaladaas uu soo maraa xil uu ka fikiraayo maxaa qabataa maxaa samaysaa waxaa jiro kumanaan qof oo talooyin ku siinaya laakiin maanta waxaan rabaa inaan ku siiyo talo yar oo haddii internet aa haystid ama mobile aa haystid aa ka faa'iidaysan kartid. taladu maxay tahay? ugu horeyn talada intaa u gudbin يعني waxaa jiro horta mindset-ka iyo habka dadka u fikiraan laba qaab waa tusaale qof markii subax hurdada oo ka soo kaco oo waago u bariyo wuxuu is dhahaa dowladdan dowlad fiican ma ahan wadankan wadan fiican ma aha jaamacadda ka soo baxay yani jaamacad fiican ma aha yani eed bas qofna waxaa waaye markuu subax hurdada ka soo kaco wuxuu dhahaa oo maasha Allah alxamdulillah maanta waa soo nabad kacay waxaa haystaa fursad yani waxaa haystaa tiknoolajiyad waxaa haystaa internet waa ka faa'iidaysan karaa marka haddii adiga maskaxdaas noocaas aa leedahay waxaa qabsan kartaa laakiin haddii maskaxdaada ay tahay mid dhaliisha iyo eedeynta horumar ma jiro. waxaa jira marka small business oo aad ku bilaabi kartid wax ka yar $400 waan kula wadaagi doonaa step by step yani qaabka ku gaari kartid. number 1 meeshaan waxaa ku haynaa ilaa iyo dhowr nooc oo saacado ah. saacadahan waxaa waaye cajiib ah markaa furtid gudaheeda waxaa ku jiro yani waxyaabo kale oo cajiib ah. tusaale waxaa ku jiro suun waa saacad wadato sidoo kale waxay wadataa airpods waxay wadataa suun kale oo saacadda la socdo waxaa laga yaabaa saacaddan marka haddii aad rabtid inaad businesskeeda iyo waxyaaba lamid ah bilowdid lacag yar $10 inaad kusoo gadatid gaadgooy waxaas lagu daray $16 inaad kugu fadhiisto laakiin haddii internet aad haysatid waxaad ku iibin kartaa wax ka badan $25 iyo lacag lamid ah. marka inaad business samaysid ma adag tahay mise ma adko qaybta commentiga nooga soo qor. haddii aad rabto marka inaad barato ganacsiyadan online-ka sida loo dhiso A to Z social media marketing-ka waxaa jira koorsooyin cajab oo aan diyaarinay dad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysteen. waxaad booqan kartaa website-keena waxaa soo dhigaynaa linkiga hoose ee description-ka ama waxaad ku biiri kartaa Telegram group-keena oo aad ka arki doontid yani shaqooyinka aan qabano howlaheena kala duwan. marka haddii aad usoo laabto su-aasha haddaa ku weydiinaaye adi maskaxdaada tee waaye maskaxdii dowladda eedeynaysa miyaa maskaxdii jaamacadda eedeynaysa miyaa maskaxdii waddanka eedeynaysa miyaa mise maskaxdii dhihi jirtay ani waxaa haystaa internet waxaa haystaa teknolojiyad wax walba qabsan karaa aadan qaybta commentiga noogu soo qor.